sida aan u daabano filmaanta caadiga oo Netflix ka daabano kala camal ya qaab qurux badan oo laga soo shaqeeyay waa muhiim hadda ambulance ka shaqeynaysid ama hadda booliis tahay oo kale arin qarax ama waxyaabo ma aragtay oo dhibaatooyin dhaco marka la kulantid waxa qurux badan in gacmahaaga ay ku jiraan gloves bismillaahir rahmaanir rahiim sallallahu alayhi wa sallam dabada nabadda kastoo adduunka joogtiin waa ma dhahday may maqleen waa كسرنا مقال عصب يا لكن خابك أفرق محواي خابك مقالك كبلا ورد قيلي وصنقته الحمد لله وأحس إن أنا واحد بدنا أقيمه حق فريق أصيب هاي كرسيان أنك فريق كرسيك عادية الكمبيوتر كانوا استعمال الجري وجبي تيم كميزاك إيش ما كفرستان ها بس ولا سكدي ما تيجي ساعتها وحرب ما أنت أنا إذا بداقو أما بحد درينكي كو آدن مسلسل كتحنها أرضي إن أنت تابن سقط الطاولة وحكتين الماء ما يعني يعني فكر كيجا عن كهرلو فيلم كان أرضي وحال السجاية يبد بدن تريلر كيس جورميا لصوصار سدح بالكهرميا لو بالكهرميا يعني ما حسست ميلها عمل ودم بنتي لو تريد تضرب أبريل على صوصار وعدا بدي رنتي مو قالك وحوها قيبتيس أوهريسي وان كهلي وين إسوجيدته صبرك وحربا هايلايتس ميلا أمم مهمسان عن ربا نفكر كسوكر ليا أما عن دت كيجا لبدا لما ركزوا على فينيس كيجا وفاميلي كيجا وحارك بحياة بدن أو قروح بدن أو سوجيدش هذا وحياة بدن وهذا أباهن إن ما ركت اللي يرتها لوجا ديجو نجمة قالوا هاي قراعة وكود ديارية هو محاوى كنت أنا سليتك شيء وحير لك ودري هاي وحكام اللي بس قراعة وده هذا هاي سلعتي ما كورس مستلد محسرهم عندي sida loo duubay inaba caadi ma ahan angalada kaamirooyinka ay ka imaanayaan qaabka loo duubay sida muuqaalka smooth uu yahay ما شفت برصة العيون وفروي ما سوتي دحير وإحنا كجري ما وجداي وما هي ميشان قيلنا وحكم مجرى دي وح كجري محيل قيلنا وما هي وحان بين سوايا وبماشي لو مثل الجنو معانا سكوكا واحدة قبطاية مسكوت مقداف ما سمعني بارت حكا خلطن ما دمت على لك شكرا دمت على خمسون بس تردي دمت فيرسة شقضاء إلى شو أصبحي هاي محادا هروسا ساعة iskuulada Soomaaliya dhalinyarta markii iskuulka aadaan saas ma loo baara yani ma la fiiriyaa hadii wax mindi ay bataan way fiican tahay wax qurux badan xagga amniga khusaysa waa wax fiican in ardayda qaar la ogaado xaaladooda cuz dad bay yani dhibaateyn karaan ardayda qaarkiis hadii aan la baarin oo kale iskuulka soo galaan ama klaaska waxa laga yaabaa inay dhibaato badan sameyn karaan arrinkaas ardayda intay klaaska galeen ka hor in la baarayo waa arrin qurux badan waxay ka qayb qaadanaysaa dhanka amniga laakiin waxa ridana insha Allah dhawaan in laga bixi doono yani foodadaasi dhibaatooyinkaas oo dhan mar waxaa jirtay laba kamid ah ardayda ay isku share gareysanayaan video quseeya in gabar laga duubay screen recorder ma ama video gabar yani quseeyo laakiin oo waxyaabo privacy ah qaabka u share gareysteen wiilka loo share gareenayay mar wuxuu dhahay صحيح محكي قلدم فيديو مقعي أو بدون قرطبة هذا نمبرك وحي ماشي أكو قرطبة بحنا جلس مرتا kan kale jawaabtiisa waxay noqotay qorshaha kuma jirina share gareys ad inuu kugu ekaado bis dheerawa waxaan ugu talgalay bas in aad haysatid aadan share garan taa macnaheedu waxay ka macnaheedaa qofkan hadduu dad kale u sii share gareeyo magaciisa ku qoran sawirkiisa soo ma awoodi karo inuu sii share gareeyo you see meel dheer laga fikire dhalinyarta hadda joogaan yani qaabka ma aragta u dhaqmaan oo kale waa laga sheekay film ahaan loogu sheekay isku soo wada duub qaybtaasna yani waa digniin qurux badan ku jirto oo looga digayo dhalinyarta share gareysta ama isku dirdira waxyaabaha privacy-ga ama gabdhaha lagu dhibaateenayo ama whatever wax rabtaa noqoto soo taasna waxaa rajayna dad badan insha Allah inay kaga digtoonaadaan sida filmka loo director gareeyay storyga soo sheekada filmka inaba caadi ma ahan qiso ama film walba sheekadiisa hadaad aragtid wax bay ka tarjuntaa badana ama waxyaabo soo dhacay ama waxyaabo dhici doono qisada muuqaalka uu ka hadlaayo waa waxyaabo hadda wadanka ka jira waa waxyaabo dhalinyarta hadda xilligan jiilkan la joogo badana quseeya inay dad u noqon karto inay kaga dayadaan yani waxyaabaha wanaagsan kii waxun yani kaga daynaan asay u taala mustaqbalka qeybaha dambe imaan doona ama haday noqonayso in filmaan kale oo noocan oo kale la sameyn doono in waxyaabo badan oo aan arkay ay jirtay fikir ahaan kaga darsanaa qeyb waxaa jirtay qarax markuu dhaco kadib imaanayaan yani gargaarka degdega ama ambulance soo marka dadka ambulance-ka ka shaqeynayay marka yani dhaawacyada iyo wixii ay dad gureynayeen ama ay qiimeen ku sameynayeen waxaan ku arkay yani gloves gacmahooda kuma jiro
waa muhiim haddaa ambalaas ka shaqaynaysid ama haddaa booliis tahay oo kale arrin qarax ama waxyaabo maaragtay oo dhibaatooyin dhaco markaad la kulantid waxaa qurux badan in gacmahaaga ay ku jiraan gloves because meesha waxaa dhacday jariima ama wax dhaabac ama yani qaraxa dhac tusaale okay so ambalaaska tahay aad ka shaqaynaysaa ama booliisa tahay so farahaaga hadday gloves ku jirin waxay saameyn u geysan kartaa ama ay dhumin kartaa dambiilayaalka ka dambeeyay falkaas dhacay haddaad ta taawatid meelaha qaar farahaaga way ku sabarmayaan so marka waxaa qurux badan tiimka ambalaaska next time haddii film la sameynayo inay xirtaan gloves waa wax qurux badan waxaa laga yaabaa muuqaalkan inay daawanaan dad badan oo ka shaqeeya ambulance ama dad saaxiib la ah ama walaalahooda ka shaqeeyo ama waalidiintoodaba taladaas way qurux badan tahay next time insha Allah hadda maaragtay waxyaabo noocaas aad la kulantid oo muuqaal noocan aad sameynaysid oo kale gacmahaaga gloves ha ku jiraan waa haddii aad tahay booliis ama dhakhtar in wax la jilay ka suko sida caadada ah waxay qurux badan tahay inaad xirtid gloves haddii shaqadaadu ay noocaas tahay sida aan u daawano filmaanta caadiga oo Netflix ka daawano kala camal qaab qurux badan oo laga soo shaqeeyay cameraman oo xirfad badan u leh sida muuqaalada loo duubo sidoo kale sida loo edit gareeyay naba caadim ahaan ardayda kale ee muuqaalka jileysay kaalintooda way qaateen waxa isdhihi karnaa ardaydan yani muuqaalka inta la duubin ka hor yani in training la siiyay oo xoogaa loo tababaray Somali fasalkeedu my god حتى أنا حسيت Somali ayaa leh waxaa loo duubay qaab caalami ah ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo dhammaan shaqaalaha ka soo shaqeeyay muuqaalkan quruxda badan ee fariimaha waaweyn ambaarsan tabinayana sidoo kale waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo dhammaan yani ardayda iyo dadka jilaya muuqaalka qof walbo qaybta uu ku lahaa aad iyo aad ugu mahadcelinaa sababta ugu mahadcelinaa waxay tahay waxay noo soo bandhigeen xirfadooda iyo fariimo qurux badan waxyaabo badan way jirtaa filmana aad daawan oo kale oo insha wax ma dhaamo wax ma dhaamo waan bareejenay waxaan rajaynaa insha Allah sanadaha soo socdana inaan ma aragtay yani aan la tartami doono kambaniyalka waaweyn ee muuqaalada sameeyo sidoo kale waxaan aad iyo aad aan ugu mahadcelinaa team bile iyo directorka filmkan soo saaray juhdiga ku bixiyay producerada cameramanada hatta kii nalka hay mikrofoonada yani waaw waa shaqo qurux badan oo yani taabagal ah oo haddana dhalinteena ku dhiirigelinaysa inay yani xirfadahooda ay ku soo bandhigi karaan qaab yani film sikasa taa wixii dareenkay ku aadanaa ee muuqaalkan intaas oo haddii aad muuqaalkan ku caajisteen karaal noqda haddii aad ku raaxaysateen oo ku mahadsantiin ilaa labada dhinacba waqtiga kaga bax muuqaalkan insha Allah waqtigaaga ka faa'iideyso